gudoomiyaha xisbiga wadaniga deegaanka Coodanle oo ka tirsan gobolka Buuhoodle iyo taageerayaashii xisbigaasi ayaa gabi ahaanba ka baxay xisbigaasi iyaguna si rasmi ah ugu biiray xisbiga muxaafidka ee Kulmiye iyadoo xafiisyada xisbiga wadani ku lahaa deegaanka Coodanle laga furay astaantii xisbigaasi isla markaana lagu xidhay calanka xisbiga Kulmiye xafiisyadan oo ka koobnaa 5 xafiis ayaa waxay noo sheegeen gudoomiyaha xisbiga wadaniga deegaanka Coodanle iyo xubnihii kale gacanta ku hayay inay ka baxeen xisbiga wadani kadib markii ay ku qanci waayeen siyaasadda xisbiga wadani iyaguna intaasi ku daray inay go'aansadeen inay ka mid noqdaan xisbiga muxaafidka ee Kulmiye waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya anigoo ah gudoomiyihii xisbiga wadani ee Coodanle xisbiga wadani ka diga rogonay oo Kulmiye u diga rogonay xisbigana aanu isu cusbayn oo aanu sidii markii hore ka raadiya isbedelka ay sheegayaan iyadoo aan isbedelkiiba la gaadhin ay cadaalad darro ka timi iyo qabyaalad marka aanu inta aragnay way naga filaatay Soomaalidu waxay ku mahmahdaan nin geel raaci jiray oo geel kale oo cusub raacay hebla magaciibu kororsaday awal baa anagu waxaanu la soo shaqaynaynay oo xambaarsanayn muddo dheer oo taageeradayada siin jirnay xisbiga Kulmiye waxaanu aragnay halka inaan waxba ka soo naasacadayn waxaan kaga tagayaa waxaanu nahay oo taageerada iyo codkayga siinayna oo maanta laga bilaabo ka tirsannahay xisbiga Kulmiye anigoo Maxamed Jaamac Maxamed waxaan sheegayaa xafiiskan oo ka tirsanaan jiray xafiisyada ka tirsan degmada Coodanle ee wadani waxaanu si buuxda ugu wareegnay maanta oo ugu biiray annagoo ah beesha reer dhuxul xisbiga Kulmiye markaanu ku qanci weynay xisbiga wadani siyaasadiisii iyo sidoo wuxuu waday waxaanu ka go'aansanay inaanu ka tagno oo ku wareegno xisbiga Kulmiye waa soo sida maaha xafiiskan wuxuu ahaa xafiis ku yaala degmada Coodanle oo ka mid ah xafiisyada wadani sidaa wada arkaysan waxaan maanta cadaynaynaa anigoo magacayga Salmaan Yuusuf Maxamed haddaanu nahay beesha reer dhuxul inaanu ka wareegnay wadani markaan ku qanci weynay siyaasadiisii iyo barnaamijkiisii uu waday waxaan maanta cadaynaa sidaa wada arkaysan inaanu ku wareegnay xisbiga Kulmiye ku hadlaya afka dhalinyarada Coodanle wada jir ururka reerdood ee taageersanaa wadani ayaa soo diga rugtay waad aragtaan astaantii wataa laga dhigay sidaasaan ku taageersanay xisbiga Kulmiye aan ugu codaynaa farteena yaale leenoo codayn sahankaanu dirnay wadani waanu saluugnay sahankaanu dirnay iyo wadani waanu saluugnay sifihi 60kii Soomaaliland khaldantay xamar buu ku socdaa surma seegta labaad koonfur loo sacabeeyay saaka maanu filay mujaahidka u samray iyo war Muuse siiyo codka oo ahaa hogaamiyaha xisbiga wadaniga Coodanle halka xirsi ugu jiro wadani ayaan anigu Coodanle kaga jiray war anigu ka soo noqday ninkii maanta ku jiro waan kula dardaarmaya ka soo noqo calankiisina waa ka saacada laga bilaabana waxaan u diga rogtay xisbi xaakinka Kulmiye Shaafici Maxamed Ibraahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer